Labadan lamaane oo heestooda muddo la sugayay ayaa xalay afka labadii yeeray. Muuqaalka heestoodii oo dhammays ahna ku soo bandhigay barta YouTube. Daawade, muuqaalkan waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa. Maxaad kala socotaa sheekada dhabta ah ee labadan fanaan? Halkee ayuu ka bilowday xiriirkoodu? Hodan Cabdiraxmaan oo ka hadashay sheekadooda dhabta ahi maxay ku salaysan tahay? Haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato channelkeena, fadlan subscribe saaro si aad ula socoto muuqaalada iyo warbixinada aynu halkan soo gelino. Heestan ay soo bandhigeen labadan fanaan waxaad ka turjuban kartaa dareenka dhabta ah ee ay wadata heesto. Jacaylku waa dareen u baahan fahan gooniya iyo nolol qurxoon. Arrinta sheekadan xiisaha ku laraysa ayaa ah in labadan fanaan dareenkooda ay isugu gudbinayaan heestan ay wada qaadayaan. haddaad ila joogin babe darta waan jiranayaa intaan jehel cashaqaadin qalbiga kula jira oo kalay. haddaad ila joogin babe darta waan jiranayaa intaan jehel cashaqaadin qalbiga kula jira oo kalay. haddaad ila joogin babe darta waan jiranayaa intaan jehel cashaqaadin qalbiga kula jira oo kalay. haddaad ila joogin babe darta waan jiranayaa intaan jehel cashaqaadin qalbiga kula jira oo kalay. Heestan ayaa noqon doonta mid hadalhaynteedu badato. Lamaane waliba oo nolosha ku mideysan iyo taageerada labadan fanaan ayay dhadhan macno sameeya u yeelan doontaa heestu. Labadan fanaan ayaa waxa ay ku kala nool yihiin laba wadan amaba laba qaarad sida aad u garanayso. Fanaanka Maxamed Alta waxa uu ku nool yahay qaaradda Ameerika waa Mareykanka, halka Ken Jaamac ay joogto qaaradda Yurub ee Finland. Isbarashada labadan fanaan waa ay sahlanayd maadaama labadooduba ay yihiin shakhsiyaad bulshada Soomaaliyeed magac ku leh. Dadka Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya halka ay iska gacan qabsadeen labadan fanaan. Dhammaanteen sida aan la wada socono, fanaanka Maxamed Alta ayaan wax heesa soo saarin muddooyinkii aynu soo dhaafnay, isaga oo heestiisii u dambeysay qaaday 9 bilood ka hor. Dhinaca kale, Ken Jaamac ayaa iyaduna bilooyinkii tagay aan il iyo baal lagu saarin shaashadaha. Ha ahaatee, saacadihii aynu soo dhaafnay ayaa la soo baahiyay heestoodii oo dhammaystiran. Dadka Soomaaliyeed ayaa xilligan ku baraarugsan jacaylka lamaanahan. Barta internetka Soomaalida ugu faafka dheer ee Facebook ayaa lagu hadal hayaa. Isbarashada dhabta ah ee labadan fanaan ayaa ka bilaabatay Snapchat, iyadoo markii hore aqoonta lamaanahan ay ahayd in ay labaduba yihiin fanaaniin u heesa dadka Soomaaliyeed. Laakiin muddo ka hor ayay ku bohoobeen barta Snapchat. Sida aan wada ogsoonahay, dadka ku saaxiibka ah Snapchat halkaas ayay ku wadaagaan muuqaallo gaagaaban oo ay isweydaarsadaan. Lamaanahan ayaa iyagu barta ku wadaagi jiray muuqaallo gaagaaban, badina u badan kaftan. Xiriirka lamaanahan ayaa muddo kasii socday Snapchat, iyadoo lamaanahan xiriirkoodu uu u muuqday mid sii xoogeysanayo cudud adagna yeelanaya. Lamaanahan ayaa waxa ay ku ballameen in ay kulmaan. Kadib waxaa tigidh soo jartay oo Finland yimid Alta, isagoo go'aan ku gaaray in uu u yimaado gaclisadiisa. Lamaanahan ka hor inta aysan kulmin, muddadii ay ku sheekaysanayeen Snapchat-ka waxa ay kala qorteen nambarada, iyagoo ku ballamay in midba kan kale uu xiriiriyo si kalsooni buuxda ay isugu abuuraan. Ugu dambeyn, lamaanahan markii ay kulmeen, abwaan ayaa waxa ay ka dalbadeen in uu u sameeyo heestaas oo ka turjumaysa dareenka dhabta ah ee noloshooda. Bulshada Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan u hadal haysa jacaylka lamaanahan, iyadoo barta internetka ugu faafka dheer Soomaalida ee Facebook si weyn loogu hadal hayo. Qaar ka mid ah gabdhaha fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa si dhow ula xiriiray Ken Jaamac, iyagoo u sheegaya in Maxamed Alta uu horay u furay Hodan Cabdiraxmaan,
haddana ay dhici karta bay yiraahdeen in King Jaamac ay isku wanaagsanaan waayaan oo ay kala tagi karaan. King Jaamac ayaa se ugu jawaabtay in qadar Rabbi halkeed ay tahay, laakiin labadoodu kalsooni weyn ay ka dhex abuuran tahay. sidoo kale waxaa si hoos oo la xiriiray King Jaamac Hodan Cabdiraxmaan oo ah marwadii hore ee Maxamed Alta. Hodan Cabdiraxmaan iyo King Jaamac hadaladii dhex maray ilaa hadda ma cadda iyo waxa ay ka wada hadleen, laakiin waxa ay ka wada hadleen jacaylka guuleystay ee hadda dhex maraya King Jaamac iyo sidoo kale fanaanka Maxamed Alta.